waaga marka uu bariyo dhammaan dadka waxay u wada jihaystaan danahooda gaarka ah. kuwa ayaa shaqo aada, kuwa ayaa waxbarasho u dareera, kuwa ayaa caafimaad aada oo xanuunsan. qof waliba meel ayuu u jihaystaa. subaxaaga si uu kugu qurux badnaado ku bilaaw dikriga Allah. salaada subax marka aad dukato xisib ama juz quraan kamida akhri. guriga marka aad ka soo baxayso akhriso ducada. guriga marka laga soo baxay akhristo. Allah magantiisa ayaad galaysaa maalinkaas oo idil. noloshu way dhibaato badan tahay, waad guul daraysanaysaa, wixii hamigaaga ahaana ayaad weynaysaa mararka qaar. ka cabsan inaad horay u socoto, ha ka cabsan bannaanka inaad uga soo baxdo waxa kugu hareeraysan, ha ka cabsan inaad ku fashilanto nolosha. riyadaada iyo rabitaankaaga ha ka weynaadaan wax waliba, laakiin xasuusnaaw riyo aana wax hadafa lahayn keliya waa uun iska riyootay. aakhirkana niyadjab ayay ku soo dhammaanaysaa riyadaas. sidaas darteed marka aad leedahay riyo waa in hadafkaagu uu ku cad yahay. waa inaad samaysataa hadaf maalinla ah, hadaf billa ah iyo hadaf sanadla ah. waa inaad fahamtaa inay muhiim tahay inaad hadafkaas gaarto. waa inaad wajahdaa ama u wajahdaaba si akhlaaq ay ku dheehan tahay, joogtaysana weliba si maalinla ah. waa inaad shaqo qabataa maalin walba. waa inaad qorshe leedahay una sheegtaa nafsadaada weliba. waa inaad nafsadaada ku dhahdaa qorshahan ma guul daraysanayo, una shaqaysaa weliba si adag. inaad u shaqayso si adag waxay guul u horseedaysaa nafsadaada iyo inta kugu hareeraysan. dadka qaar ayaa ku dhahaya horumar ma samayn kartid, ma guulaysanaysid. inaad mararka qaar halista qaadato waa muhiim. waxaan hubaa dadka qaar inay kuu sheegi doonaan ama ay ku dhihi doonaanba dib u noqo, ma awoodid waxaan inaad samayso. laakiin ha aaminin marna waxa ay dadka kale kuu sheegayaan. guuldaro waliba oo ku soo wajahda waa cashar ku cusub noloshaada, waxna ay ka baranayso. haddii hal waddo ay kaa soo xirmato micnaheeda ma ahan inay guusha dhan kaa soo xirmatay. waxaa jira waddooyin badan oo loo maro guusha. qaado halista oo u bareer. waxaan hubaa dhanka aad ka cabsanaysid inay jirto guusha iyo farxadda noloshaada. meelaha qaar noloshaada guuldaro waa ay ka soo wajihi kartaa. waa caadi, waa guuldaraysanaysaa. noloshaada waa inaad cambaaraysaa, canaanataa weliba, dibna u saxdaa wixii kaa khaldamay. qof walba oo dhallinyaro ah oo maanta jira wax ayuu bartaa, maalinna jaamacad ayuu ka qalin jibin doonaa isagoo wax badan noloshiisa ay ka bedashay. laakiin waxaa xaqiiqo ah inay ka soo horayso inaad jaamacad ka qalin jibiso, wax barato, shaqo badan iyo sabar badan iyo dadaal badan. waxaad qaadanaysaa tababaro nolosha ku saabsan. laakiin ka waran haddii aad ku fashilanto? isku day mar kale. waxaan hubaa inaad guulaysanaysid marka xiga. marnaba ha ka cabsanin mustaqbalkaaga, marnaba ha ka cabsanin noloshaada. horay u soco, dhaqaaq, isku day. wax walbana iskudayga ayay ku fiican yihiin. iskudayga wuxuu kuu horseedaa guul aadan marnaba filaynin. Allah subxaanahu wa tacaala taladaada u dhiibo, mar walbana taladaada rabbigaaga u dhiibo, waad guulaysanaysaa aakhirkii.